iyadoo maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xubno wasiir ah ay safar shaqo ugu maqnaayeen dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta wafdigaasi waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland intaasi kadib waxa warfidiyeenada la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag isagoona madaxweynaha Jubbaland ku soo dhaweynayay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu faahfaahin ka siiyay xaaladda guud ee magaalada Kismaayo waxaan ku leenahay mudane madaxweyne adiga waftigaada ku soo dhawaada magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee Kismaayo labada usbuuc oo ka maqnay dalka dhammaan guud ahaan dhulka Jubbaland nabad buu ahaa insha Allah ta'ala wax walba caadi bay ku sii socdeen horumarkii iyo maxalada dibudhiskii baa noo sii socday amniga iyo suustiisa baa noo sii socotay wax dhibaato ah oo dhacday ma jiraan waxa sharaf noo ah in aanu nabad ah noo timid waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow dalkaagi oo nabad ugu timid inaan ku soo dhaweyna sharaf bay noo tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxa hadal kooban qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kana warbixiyay safarkii shaqo ee ay u tageen Imaaraadka Carabta waxaana madaxweynuhu soo hadal qaaday hawlgallada maamulka Jubbaland ay doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada ka maqan gacantooda isla markaana gacanta ugu jira ururka Al-Shabaab sallallahu alayhi wa sallam aad baan idinku mahadcelinayaa ku-xigeenada iyo golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo dadka kale guud ahaan nabad baa ilaahay nagu soo celiyay safar shaqo waxaan u aadnay Imaaraadka Carabta waxaan isleeyahay waxaan u aadnay wax danta Jubbaland iyo danta Soomaaliyeed guud ahaan wuxuuna ahaa safar naajixa waxyaalaha ka wada hadleen inta badan khayr bay ku soo dhamaadeen waxaan hadda ugu badan la sugayna waxa ay hawlgal in la qaado iyo dib u xaraynta inta u dhiman deegaanada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland oo ugu horeyso caasimadii dowlad goboleedku ay lahayd waxaan rajaynayaa in ilaahayna ka baryayaa inuu horumar iyo amni nasiyo shayga ugu muhiimsan waa amniga haddii la helo waxaan isleeyahay wax badan baa qabsoomi karay wax walba nolosha amniga ku xiranta waan rajaynayaa dadkana Jubbaland sida fiican nabadda iyo uga qayb qaadanayaan insha Allah inay sii badiyaan waxaan u diyaar garoonaa ay noqonayso haddii Ilaahay yiraahdo bal hawlgalkii guud iyo qorshihiisa si loo geli lahaa aan rajaynayaa meel fiican mari doono aad baan idinku mahadcelinayaa qoladii si joogtana soo dhaweysay iyo dadka reer Jubbaland guul baan idin rajaynayaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan meesha ka sii wadi doono mahadsantiin salaamu calaykum Saabir Abdulqaadir Rasul Saabir Honesty telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Kismaayo